waa bandhigga wareejinta agab caafimaad oo maanta loogu deeqay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir. Waa deeq ka timid hay'adda khayriga ee Hormuud Salaam Foundation oo ka jawaabaysa codsi hore isbitaalku ugu gudbiyay 10 mashiin oo kuwa sida gaarka ah loogu xanaaneeyo carruurta aan bila dhameyska ahayn ee dhashay goor hore marxaladaha uurka ay hay'addu guddoonsiisay maamulka isbitaalkan, taas oo qayb ka ah baahi ka jirta daryeelka gaarka ah ee dhallaanka cusub. deeqdan aan maanta ku deeqnay waxa aan ka jawaabaynay codsi hore inooga soo gaaray isbitaalka oo runtii ay macnaha haysay baahi ama mataqaanaa xaalad ah inay ku yar yihiin sariiraha incubatorska loo yaqaano ama carruurta aan ayagoo dhammaystiran dhashay la geliyo si muddo mataqaanaa loogu xanaaneeyo isbitaalka hooyada dhallaanka ee Banaadir oo ah isbitaalka kaliya ugu weyn ee hooyada dhallaan ee ka jira dalka Soomaaliya, isla markaasna si bilaash ama lacag la'aan ah ku daaweeya hooyada iyo dhallaanka dhammaan laga keeno dalka Soomaaliya qaybihiisa goboladiisa degmooyinkiisa kala duwan. Sidoo kale waxaa ayadana jidka ku soo jira matoor dabka dhaliya ama power generator oo ayadana aan ka soo iibinay dalka dibaddiisa oo dhawaan soo gaari doono isbitaalka haddii Allah awood leh uu saamaxo. deeqdani ayaa gacan ka geysan doonta yareynta heerarka dhimashada dhallaanka ku dhashay 32 toddobaad ama wax ka yar ee lagu qaabilo halkan. Maamulka isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir waxay u arkaan deeqdani taageero muhiim ah oo Hormuud Salaam Foundation ay mar kale uga qayb qaadanayso horumarinta kaabayaasha adeegga caafimaad ee isbitaalkan danta guud ah. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa hay'adda Hormuud Salaam Foundation gudoomiye Cabdullaahi iyo Jamiila iyo tiimka dhammaan oo runtii si hagar la'aan ah mar walba noo garab istaagsan, taasoo runtii keenaysa inay nala dareemayaan baahida isbitaalka ka jirta maadaama isbitaalku uu yahay isbitaal public ah, baahidiisana runtii ay aad u adag tahay in la daboolo. runtii ma ahan kaliya 10kan sariir waxa ay Hormuud keeneen hore waxa ogtihiin inay dayactiro warshadii oksijiinka dhalinaysay, matooro dayactir u sameysay, matoorana hadda ay wadada ku soo jiraan hal matoor oo mar dhow insha Allah soo gaari doona. waxaan si kal iyo laaba ugu mahadcelinaynaa hay'adda iyo shirkadda Hormuud runtii oo mar walba si hagar la'aan isbitaalka u garab taagan. markasta oo canuga dhasho waxaa sare u sii kacaysa halista dhimashada ama naafanimo daran. helitaanka mashiinada noocaana waxaa looga baaqsan doonaa halis badan oo ay carruurtani wajihi lahayd. dhalooyinkan casriga ah ayaa awood u siin doona dhallaan badan inay helaan gargaarka caafimaad ee ay u baahan yihiin. maadaama ilmahan ay ku dhasheen iyagoo bilahooda dhiman yahay, uurka hooyadooda waxay ku haysteen wax alla wuxuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala baahidooda xaqabtiri karay ku haysteen. heerkulkoodii way la ilaalinayay, cuntadooda cabitaanka waa la ilaalinayay, infection hooyada way ka ilaalinayso waayo xoog buu ku daboolnay. incubatorka ama dhalada galiyo maxay u taraysaa intaas horta mooda kaabi karta Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo bini'aadanka si laakiin baahiyaha gaarka in cunugaas aynan temperaturekiisa ama heerkulkiisa hoos u dhicin, in cunugaas infection u gaarin, inagaaseti inta oo u baahan yahay humidity la dhahay loogu sameyn karo waayo machine waayo dhakhtarka ayaa ama nurse ayaa programinaayo inta u baahan yahay intaas ayuu ku joogaya. marka baahidaas waa baahi asaasi ah. daryeelka gaar ahaaneed ee dhallaanka yaryar iyo kuwa jiran waa mid xadidan heerkooduna hooseeyo dalal badan oo dakhligoodu hooseeyo oo caalamka. ilaa iyo 19 mashiin oo noocan ah ayaa hore u yaallay isbitaalka Banaadir, taas oo wadarta guud ka dhigaysa ku dhawaad 30 xabo. 17% dhallaanka ku dhashay cilladaha xilliga hore uurka ayaa horseed ka ah dhimashada carruur badan sida ay qabaan khubarada caafimaadku.